kulanti wanaagsan ku soo dhawaada mid ka mid ah sheekooyinkeena imtixaanaha inoo ahaa. Sheekadeena maanta ciwaankeedu waa Inasan Weyne. Durba waxaa kugu soo dhacayo heeskii ahaa garta Inasan Weyna loo geysan jiray. Haddaba sheekadeenu maanta maxay qusaysaa inala socdo daawadayaal. Waxaa dhacday in hal booli ah ay soo gashay nin deganaa meel ama baadiyo ah. Muddo kadib ayaa ninkii hasha lahaa oo meel fog ka soo raacdo tegay ama ka soo sahan tegay waxa uu u yimid reerkii hashu ay geelooda ku jirtay. Hase yeeshee odaygii ay hashu geeliisa ku jirtay wuu diiday inuu hawl yari hashii isaga celiyo. Arrintii waxa ay istaagtay qir iyo qir wax la wadaba markii dambe ay labadii nin ku heshiiyeen inay rag isula tagaan si loogu garqaado. Ninkii hasha lahaa baa codsaday in gartiisu uu uga go'o ninka la oran jiray Inasan Weyne. Odaygii hasha haystay wuu bogay waayo garsoorihii baa noqday ninkii inantiisa qabay oo la oran jiray Faarax Maxamed Yuusuf kuna magac dheeraa Inasan Weyne. Odayga waxaa ku kalifay inuu isaga gartaan sidii doono ilayn waa inanku sodoga u ahaaye. Odaygu waxa uu ka filayaa inuu isagu garta siin doono ilayn waa ninka uu sodoga u yahay. Ninkii hasha lahaa isagu ma ogeyn in labada nin isugu sodog ahaayeen, sidaa daraadeed arrinkii waa la isla ogolaaday. Labadii nin ayaa garnaqsaday. Markii uu gartii si fiican u dhageystay iyo Inasan Weyne waxa uu cadaatay in sodogiisii gar daran yahay. Hase yeeshee kama go'in oo kama uusan hakan inuu xukun xaq ah ka rido gartii. Waxa uu yiri gari sodog seedi iyo xil midna ma taqaan Ilaah bay taqaanaa. Hashana waxa iska leh ninkan ka hunguri gaabso. Kolkii go'aankii dhacay ayaa sodogii arrintii la qiwaayay. Ninkii hasha lahaa waxa uu aad ula yaabay xilleerida Inasan Weyne iyo xilkasnimada uu eebe ku manaystay. Wuxuuse la sii yaabay markii uu ogaaday in ninkii uu ka garnaqsanay uu ahaa Inasan Weyne sodogiisa. Goortii uu ninkii degmadiisii ku noqday ayaa maalin maalmaha ka mid ah ninkii garsoor loo saaray. Nasiib darrose go'aankii markii uu riday ayaa loo cambaareeyay oo la yiri gartu ma naqnaa. Ninkii kalsooni isku qabay darteed wuu liici waayay haaraankii iyo sidoo kale cambaareyntii dadka. Waxaana ugu jawaabay hadalka qaadka noqday gartaasi sidaa bay noqonaysaa Inasan Weynena u geeya. Taas oo uga jeeday in gartu ku sugan tahay sidaa uu u noqday oo Inasan Weyne waxa uu uga hal qabsaday aqoonsi uu aqoonsanaa inuu ahaa xilleerahan aan laga daba dhufan oo hadalka aan laga daba rogin. Daawadayaal sheekadeeni maanta waa naga intaa. Boggan Facebook iyo sidoo kale YouTube-ka subscribe iyo follow inoo dhaha muuqaalkana share gareeya oo la wadaaga saaxiibadiina mahadsanidin. Soo dhawaada waana inoo sharaf.